afkaygu qolomatid qabiili reer matid afkaygu qolomatid qabiili reer matid qofkar kulihi ma jiro oo ma jiro qofkar kulihi ma jiro qofkar kulihi ma jiro oo ma jiro qofkar kulihi ma jiro afkaygu qolomatid qabiili reer matid afkaygu qolomatid qabiili reer matid qofkar kulihi ma jiro ma jiro qofkar kulihi ma jiro qofkar kulihi ma jiro ma jiro qofkar kulihi ma jiro dadkaaga qaybsamo qolobo qoladiidante dadkaaga qaybsamo qolobo qoladiidante adigu waxa tahay afqura 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 dadkaaga qaybsamo qolobo qoladiidante dadkaaga qaybsamo qolobo qoladiidante adigu waxa tahay afqura 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 بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan tahay halkan waxa ku idil oo ku dhameystiran kooxda xidigaha geeska maamul iyo xubnaba waxaanu sameynaa qada sharaf sidina loogu bartay aan ku maamuusayno maama Maryam Mursal Ciise Bootaan halkaas inagu weheliyaan fanaaniin kale oo aad u qiimo badan oo kamid yahay deeq iyo xaaskiisa ayaan Tromso waxay daarantay qadadeedani inaanu ku weyneyno fanaaniinta anaga naga waaweyn kuna sharafno maama Maryam aan ku soo dhaweyno waxaanu mahad celinayaa maamulka kooxda oo xafladan soo agaasimay gudoomiye ku-xigeenkii halkan dhinacayga fadhiya Mustafa Salebaan iyo xooghayaha oo isna ag fadhiya Maxamed Axmed Bakaal Ciro sidoo kale waxaa meesha ka maqnayn nin asnaan asxaabteeda waaweyn ah oo Cabdikariin Jaahuur imankana maamadan ku soo dhaweyn doona Soomaaliya geeska ka tagay oo mareegay magaalo walba markaan tagayo gabagii aan tirinayay gabay baan u tirinay magaalo walba hal gabay ayaan la soo maray Soomaaliya oo dhan maantana Soomaaliland bay taagan tahay marka gabagii baan magaalo kasta oo dego markaan airportka ka deganay aan tirinay Hargeysa inaan ka reebo ma rabo waxa ay daltabiya ay haysay haddaan imid dalkaygii Hargeysana ka soo degay anigoon dareen qabin caawaan dug leeyahay baan ira caawaan dug leeyahay hadiya marka waa baashaalaya ilaa intaan imidna waa baashaalaya in kasta oo wadna kurkur ay nagu hayso doorashadu siday ku dhamaanayso laakiin hadda feestooyinkii noo bilowdeen xaqiiqatan sidaan doonaynana way u dhamaatay ma sha Allah labadii bilood ugu dambeysay Soomaaliyan ee tusad ka soo maray marka yeysan isdhiin maxaa Maryam airportka iyo loogu soo dhaweyn waay aniga airportka Hargeysa inta la igu soo dhaweeyay laba jeer ayaan waliba madaxweyne isku maleeyay markaas baan socodkiisa garan waayay sidoo u socdo madaxweyne marka waxaan soo galay meeshan iyadoo la ogeyn dhuumashan ku soo galay hadii kale fanaaniinta airportka dhan baa la jiiri lahaa marka hadda la iga warhelay inaan joogo wadkii markuu dhamaaday waxa aan u sii socdaa hadda magaalada Boorame wali ma aan taginin waxaan u socdaa Boorame sida ugu dhaqsiyaha badan leh marka reer Boorame waa idin soo socdaa isuga bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad أنا سود ويننا أنا قلب فرنك سود ويننا ماما ذا قالقة ماما مريم مرسل عيسى بوتان أيانو لنا كسود ودلك جهويو وحن آدي أنا وجود دومي أو آد نوجو شرفي أو ماما ذا كل شرفي أو آد نو سود وياي حدقها جيس كده اللي يردن آدو قالقة أو آدو تشعلنا هاي أو أهدتك
aadka noo shiday waxaa noo sharafa maanta annagoo maamadii aanu meel kula qadaynayno horta anu intii markii fankaan bilaabayay ismaan lahayn cimrigaygu hadduu igu sameynaan maamo Maryam Mursal aan maanta arko on meel kula qadeeyo aad ayaan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan halka soo gudbinayaa Axmed Wali Ibrahim Furmle oo maamada salaaniga gaarsiiyo Djibouti jooga iyo kooxda intii kale sida Asma iyo Hamda iyo Maxamed Biike oo iyaguna aad ii soo salaamay maama waxaan jecelahay in salaanta ay guddoonto oo macalinku soo diray hadalka horta waa la wadiiro Cabdiraxmaan baa noogu codkarsanoo intii badnayd sheegay waxaan ku darayaa Aamina oo iyana si fiican Aamina mustafa fiican u soo dhaweysay asxaabteedii markay halka safar ku joogtay bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa la dhameeyay oo hadal u malaynaayo inaanu hadin laakiin waxa kaliya ku darayaa tani maanta waa tii sidii dhaqankeenu ama fankeenu ahaaba hadduu fanaan meel kale ka yimaado ama abwaan meel kale ka yimaado in intii kale la baxdahay ay soo dhaweeyaan oo ay sharfaan oo ay karaamayaan Maryam waxa dheer tahay iyadoo maamadii fanka ah intan imika fanka Soomaaliyeed maamooyinka ugu waaweyn ka mid tahay aad u soo dhawaada wadankiina ku soo dhawaada Aamina Mustawi iyo qurbajoog kale iyo asxaab kale badan baa joogta fanaaniin kale joogta aad baan soo dhaweynaa aad halkan ka salaamaya horta dhammaan Somaliland waxaan hadda joognaa muddo ah 2 week labada week ba waxaan noo soo dhaweysay aad u qurux badan xidigaha geeska oo cidi ka maqnayn intii ka maqan waa la xiriirinay waxa kale farxad weyn oo aad u ballaaran oo la soo koobi karno ah maama Maryam Mursal oo ku kulanay Hargeysa oo noo nimidiyadana maanta Jaahuur oo isaguna aad iyo aad noo soo dhaweeyay walaalkay ah isagana waan mahadnaqnaa haddana waxaan ku soo dhaweynayaa marwadeyda bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa horta marka koowaad dhammaan fanaaniinta tirada badan aan magacyadooda soo koobi karin miiskan nala fadhida casimaadda sharafta leh ay noo sameeyeen xidigaha geeska oo waliba u sameeyeen Maryam Mursal Ciise Bootaan oo ka timi magaalada London haddana markii ugu dambeysay ka soo ambabaxday Muqdisho kuna mareysay socdaal dhulkeeda hooyo maantana nala joogta Hargeysa farxad weyn ay noo tahay aad baan u soo dhaweynaynaa waa maamadii fanka oo fanka kaga dambeeyno oo maamadeena ah maama waxaan ku leenahay waan ku jecel lahay noolow cimrigaaga Ilaahay ha dheereeyo caafimaadna Ilaahay ha ku siiyo waxaan kaloo halkan aan ka salaamayaa Jaahuur Top Design walaalkay qaaliya oo magaalada Hargeysa aad noogu soo dhaweeyay waxaan kaloo halkan ka salaamayaa Ina Mustawi oo magaalada London ka timi waxaan salaamayaa Asad Ciise oo naga maqan isagana waxaan salaamayaa maama Samsam iyadana oo reer Djibouti oo ku joogta halkan visit de wax kale aan dhaho ma garanaye aad baad u mahadsantihiin xidigaha geeska idinkoo isku wada duuban dhammaan aad ayaan idin salaamayaa fanaaniinta xidigaha geeska oo halkan ku maamuusay Maryam Mursal Ciise maamadii fanka waxa aan ku faraxsanahay inaan kala qayb galay casuumadda sharafta leh ee loo sameeyay kulli intaan Hargeysa joogay anigu maan arag intaasoo fanaano isu tumiyay casuumad saas u qurux badan waan ku faraxsanahay inaan kala qayb galay ma sha Allah horta waxaan aad ugu faraxsanahay oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maaragtay maanta qadal la leenahay maama Maryam Mursal Ciise Bootaan oo marna aniga ah inantaydii marna hooyaday ah soo dhow ma sha Allah waxaan u mahad celinayaa dhammaan kooxdayda qaaliga fanaaniinteena kale waaweyn ee inala joogta Ubax Daahir Ubax Fahmo iyo dhammaan fanaaniinta kale marti sharafta adduunkiyo qaarada astaanbaadkoomu tahay qiimaha soomaalinimo ayaad quwadiisa tahay afkaygo ayaad quwadiisa tahay afkaygo adduunkiyo qaarada astaanbaadkoomu tahay qiimaha soomaalinimo ayaad quwadiisa tahay
ayaad quwadiisa tahay afkaygo 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 ayaad quwadiisa tahay afkaygo afkaygo qaran jira tahay afkaygo qaali baa tahay